faith and you say you are a Muslim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الذكور قوامون على النساء مدرسة ولذلك حكى. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kusoo dhawaada YouTube channelkayga Alicia's Family. Magacayga waa Aisha. Haddaa YouTube-kayga ku cusub tahay, subscribe, like and share. Sidoo kale ha naga iloobin. Maanta waxaa idin wadnaa another vlog inoo soo diyaarisay walaasheena Ayaan oo ku saabsan muxaadaro ka socotay magaalada Toronto oo noo soo jeedinayeen Sheekh Usuli, Sheekh Abubakar walaalkiis iyo culimo badan iyo culimooyin kale. So waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysiin insha Allah. waxay ku saabsaneed wacdiyo iyo ducooyin iyo su'aalo ay weydiinayeen bulshada culimada. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ويديو wuxuu ku yiri maxaa dhacay oo soomaysan waxay ku yiraahdeen maanta oo kale waa maalintii Ilaahay ku gargaaray Nabiyullaahi Muusa iyo qoomkiisa waa maalintii Ilaahay halaagay Fircawn Nabiga alayhi salaatu wasalaam hal ay yiri wuxuu ahaa annaga idinka mudan annaga idinkaga awleysan Nabiyullaahi Muusa kadibna waa la soomayay asxaabu rasuulillah waxay ahaayeen kuwa soomiya caruurtooda Asma binti Abi Bakr oo ka hadlaysay waxay oranaysay caruurta yaryar markay gaajoodaan waxaanu ku maaweelin jirnay cayaaraan u samayn jirnay si ay u hilmaamaan gaajadii qisada waxaan u soo qaadanayaa maadaama maanta aynu joogno waxay ka dhigan tahay quraanka markaa dib ugu laabatid ilaahayna inoo sheegay subxaanahu wa tacaala xaq iyo baatilkii loolanka ka dhaxeeya khayrka iyo sharta loolanka iyo tartanka ka dhaxeeya wanaaga iyo xumaanta tartanka ka dhaxeeya mar walba waa jira waa soo jiray waa jira maanta waana jiri doonaa weligeed ba khayrka iyo sharta tartan baa ka dhaxeeya xaqa iyo baatilka tartan baa ka dhaxeeya wanaaga iyo xumaanta tartan baa ka dhaxeeya maalmaha khayrku uu liibaanta iyo guusha helay inaynu xoojinno in aynu xusuusnaano maalinta sharta dhulka ay